bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum kulanti habboon daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan qaybtii sagaalaad ee sheekadeenii tako qaybtan waxay noogu bilaamaysaa sidan waagii ayaa dillaacay axmedna hurdadii ayuu ka toosay waa kaa moobilkiisii ku haaday ma wacdaa ayuu isleeyahay go'aanka qaadashadiisa kuma degdegayo inuu ka fiirsado ayuu rabaa waxa uu isleeyahay xilligan way hurudaa ma doonayo inuu hurdada ka jiidho muuqeedii ayuu kolba xasuusanayaa waa kaa saacaddii eegay aad ayuu u naxay inuu habsaamay ayuu is arkay degdeg ayuu u diyaar garoobay waxa uu doonayaa inuu shaqadiisii ku noqdo xalay ayaa lala soo hadlay oo lagu wargeliyey inuu shirkadda imaado shaqaalihii ayaa sheegay in aan laga maarmi karin waa kaa diyaar garoobay waxa uu xidhay shaarkiisii madoobaa iyo surwaalkii isaguna madoobaa waxa uu quruxdiisa ku sii xoojiyey taygii madoobaa iyo koodhkii suudhka ee isna madoobaa waa taarladiiba isla wada madoobaatay saacaddiisii madoobeed ayaa gacanta ka lulata shandaddii madoobaydna wuu xanbaarsan yahay waa kaa qolkiisii ka soo baxay waxa uu fuulay gaadhigiisii madoobaa waa ka soo qaaday laamigii madoobaa ee geli jiray shirkadda halow oo ku taalla suuqa bartankiisa cayuuni hurdadii ayay ka toostay hareeraha intaa eegtay ayay markiiba moobilkeedii ku haaday in cidi soo wacday ayay eegaysaa cidna inaanay soo wicin ayay aragtay arrintaa waa ay ka cadhootay ayada unbaa cadhadaasi og muxuu kuu soo wici waayey ayay isleedahay ma oga in wakhtigu xidhay ma oga xalay oo dhan inuu ka fakarayey ma oga inuu kolba muuqeedii muraayad ka daawanayo ma oga inuu ayada sugayo see wakhtigu xidhay uurka ayay ka canaananaysaa isaguse waxaas oo dhan uma oga waa tasariirtii ka kacday foolka ayay soo dhaqatay dhanka iyo madbakhii ayay timi waa taa iska quraacatay dawadeedii ayay soo qaadatay waa ay iska liqaysaa dhakhtarkii ayaa daawo badan u qoray subaxa hooyadeed ayaa quraacda diyaarisay iyadu way xanuunsanaysaa ayaa la yidhi cid waxba uma dirsan qolkeedii ayay iska dhex joogtaa moobilka ayay iska wadwadaa kollay wax unbay raadinaysaa dhankii shaqada ayuu yimi waa kaa xafiiskii maamulaha galay aad ayuu uga helay maamuluhu muuqaalkiisa waa nin qurux u dhashay allana aqoon ayuu ugu daray maamulihii shir ayuu ku jiray axmedo walaalo dabadda igu sug sidaa waxa yidhi maamulaha shirkadda khaalid ayaa la dhahaa waa nin muuqaal ahaan dadkiisa ku dhex jira aad ayuu u maamul adag yahay shaqaaluhu aad ayay u necab yihiin mar kasta shaqada ayuu ku dabagalaa ayana intaas ayay ku naceen aad ayuu u canaan badan yahay taa khalad kuma laha isagu qolada ka sarraysa ayaa isba shaqada ku dabagasha hal mar ayay ku soo dhacday in uu waco cayuuni fursad uu haysto ayuu ka faa'iidaysanayaa waa kaa tilefoonkii la soo baxay markiiba nambarkeedii ayuu korka ka wacay xalay ayuu qaybay waa wacay codkii telefoonka ayuu dhegaystay duud markiiba way ka qabatay inay sugaysay ayaad mooddaa haa way sugaysay oo codkiisa u duubnaa dawanka markiiba laga qabtay wuu ku farxay waa ka sheekada jiibiyey ayaana waata ka dhuurtay iska warran walaalo waan fiicanahay waa kuma waa axmed walaalo soo cayuuni maaha way ogeyd inuu axmed yahay se waa dumar iyo mukurkooda waa taa dhowla caddaysay markii uu yidhi waa axmed codkaa macaan iyo magaca qurxun way ku faraxday sheekadana way sii jiibisay haa walaalo waa anigii maxaad warhaysaa walaalo iga warran gacantiisa kumay bogsoon haa walaalo way iska ladan tahay axmed iga raalli noqo walaalo hee walaal maxaa dhacay habeenkii aanoon kuu sheegin ayaan iska tegay walaal dhib ma laha walaal haw bixin adigu naftaada iga warran axmed waan fiicanay walaalo haddeerna xaggii shaqada ayaan joogaa markaa waan isla soo hadlayn insha allah walaal ha iyo walaal waynu soo wada hadleen axmed maamule khaalid ayaa u yeedhay arrimihii jirayna waa ay ka wada hadleen axmed waxaa lagu qanciyey shaqada inuu ku soo laabto isna taa wuu ka oggolaaday halkiisii ayuu shaqadii ka sii watay arrinkiisu farxad ku sug ayuu noqday nimcadaa biyo dhigtay dhan kale waxa uu ku faraxsan yahay boqoraddii uu la hadlay sidii ay moobilka markiiba uga qabatay ma ilaawi karo taas ayaa dareen gaara ku beertay waxa uu codsaday in maanta la fasaxo oo shaqada uu berri bilaabo waa laga oggolaaday dib ayuu guriga ugu soo noqday 9kii subaxnimo marka ay ahayd qoyskiisu garan maayaan waxaa dib u soo celiyey isaga unbaa garanaya mar labaad ayuu rabaa inuu waco maanka deequu rabaa inuu codkeeda dhuuxo aabbihii ayuu degdeg ku dhaafay
waa ka odaygii sii eegay. Ma yaqaan wiilkiisa waxaa beddelay, isaga iyo wiil kale uunbuu ubad leeyahay. hooyadood ayaga oo yar ayay dhimatay. aabbahood ayaa soo korsaday, isagu waa curadkii, waxaa ka yar khadaryare. maalmahan garan maayaan waxa wiilkoodii asiibay. shaqadii waan ka tegey iyo waan ku noqday ayuu ku wareeriyey. xaaladiisa fahmi maayaan. in badan ayuu aabbihii ku yidhi guurso, isaguse kama yeelin. maanta ayay u muuqataa in uu ka yeelayo. waxa uu galay qolkiisii, isagoo aan dharkiiba la bixin ayuu wahay. markiiba way ka qabatay. sheekada ayaa la wada daadaheeyey. kolba waa la isqurqursiiyey weedhaha macaan. markaas ayaa haddana la isbarqabtay. mid kastaaba dhankiisuu sariirta dul yaallaa. waa kuwaa sidii kuwo is-og, hal mar isku dhan isu rogaya, marna wada beerdhigaalaynaya. kolay waxa ay dareemayso isna waa la dareemayaa. sheeko dheer iyo weedho caasho kadib waa la ballamay. iyada oo la ballamay uunbaa la is arkay. waa ka si kadisa u xasuustay inantu in ay xanuunsanaysay. riyadii uu ku jiray uu ka toosay, ayaana dhankeeda ayay kala toosay. xaqiiqada ayaa la wada kabaday. in aanay u iman karin ayuu xaqiiqsaday. ayaana waxay garatay in aanay u tegi karin oo aad loo ilaalinayo. mar kale ayay qosolka iyo dhoolla caddaynta qaybsadeen. marka ay bogsato inuu la kulmo ayuu ku qanciyey, ayana way ka aqbashay. intaasi kadib maxaa dhacay? la soco daawade qaybta inoo xigta qaybteena.